إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة العزاء weli waxaan wada jirnaa muxaadaradii aan u hadlaynay iftiiminta axkaamta ku saabsan soonka gaar ahaanna waxaan ku jirnaa qaybtii aan u hadlaynay shuruudu soomi soonka shuruuda uu leeyahay shardiga toddobaad ee soonka uu leeyahay waxa weeyaan waa niyada waxay ka mid tahay shuruuda soonka oo ku ansaxayo qofka hadduu ka joogo uusan la imaanin waxyaabaha afurinaya xanuun haya daraadeed ama raashinka uu jecleen amaba cabitaanka uu jecleen ama qofku wuxuu doonayaa inuu raashinka ka joogo si uu miisaankiisa isu dhimo qofka asaga waa soomaya lama dhahayo sababtoo ah haddii niyo la waayo waxa weeyaan soonka ansixi maayo marka niyada waa shardi ka mid ah shuruuda soonka oo ku ansaxayo culimadu waxay ka hadlaan niyada ma shardiba ma waa rugni jumhuurul culamaa oo xanafiyada iyo xanaabilada iyo qaar maalikiyada ka mid ah waxay leeyihiin niyada waa shardi ee rugni ma ahan shaaficiyada iyo maalikiyada qaar ka mid ahna waxay yiraahdeen niyada waa rugni oo niyadu waa rugni oo arkaanta soonka ay ka mid tahay ee ma ahan shardi rugni iyo shardina farqi baa u dhaxeeya rugniga waxa weeyaan shayga la sameynaya qayb ka mid ah weeyaan maalan salaada oo kale sujuud bay leedahay soomahan sujuudda waa rugni salaada ka mid ah marka juz ka mid ah weeyaan rugniga shayga la sameynayo ama shardiga waxa weeyaan waa shay ka baxsan wax la sameynaya sida dahaarada oo kale dahaarada salaada ka mid ma ahan laakiin haddii aan dahaaro la helin salaada ansixi mayso dahaarada marka waa shardi ee rugni ma ahan midkay doontaan noqoto culimo qaar ha yidhahdaan waa shardi niyada culimo kalena ha yidhahdaan waa rugni iyada in lama huraan ay tahay unbaa meesha ka muuqato shardi maaha marka niyada in lagu dhawaaqa sababto ah waxa weya niyada waa camal qalbi ah wax qalbiga la sameyna weyaan carabkana shaqo kuma lahan niyada marka la fiiriya waa qasad loo qasdahaya shay in la sameeyo iyadoo la qaadanaya amarkii allah subxaanahu wa tacaala maxay niyada ku sugnaan kartaa niyada waxay ku sugnaan kartaa qofkii inuu soo istaago oo suxuur cuno muxuu u suxuuranayaa waa inuu soomahan niyada inuu sheego waxba shardi maahan markuu jiifanayay hadduu ku jiifto inuu soomayo oo suxuurna cuno waxaa leeyahay qofkaasi waa niyeysi sababtaa shardi maa niyada inuu ku dhawaaqo hase ahaatee niyada naftirkeeda shuruud bay leedahay niyada laleeyahay waa shardu min shuruudi sixati siyaami soonka asixidiisii shuruuddiisa mid ka mid ah waa marka niyada la leeyahay iyada naftirkeeda shuruud bay leedahay shardiga koowaad waxa weeyaan aljazmu fi niyati niyada inay ka go-an tahay niyada inay go-an tahayoo oon taradud ku jirin qofka hadduu leeyahay ma soontaa mas iska dhaaftaa biri hadday soo noqoto soon hadday soo noqo waysan iska dhaaf qofka hadduu yidhaahdaaye niyadaas iyada ansixi mayso sida ay qabaan culimo intooda badan oo maalikiyada iyo shaaficiyada iyo xanaabilada waana qowl ay qabaan xanafiyada qaar ka mid ah waxaa kaloo shardi ah niyada tacyiinu niyati niya in la cayino waxaa lama huraan ah niyadii in la cayina soonka waajibka ah soon ramadaan oo kale in yani ramadaan niyeysanaysid saa darteed ma kaafinayso oo ma ku filno niyo iska mudlaq inay noqoto yani inaad tiraahdo waan soomi un soonka aad soomayn inuu ramadaan yahay iyo inuu geyr ramadaan yahay oo aadan kala saarin niyadaas idana ansixi mayso niyada waxaa la doonayaa inay ahaato mid yani go-an oo cayiman imaamu nawawi raxmatullahi caleyh wuxuu yidhi kitaabkiisa rawdatu daalibiin niyada oo dhammaystiran ramadaanka dhexdiisa waxa uu yidhi an yanwiya shaksi inuu niyeyso sooma qadin beri inuu soomahayo can adaa'i fardi ramadaan fardigiisa gudashadiina uu ka soomayo sanadan uu soomayo yoon uu soomaya lilahi tacaala alla dartii buu u soomaya eradan imaam nawawi raxmatullahi calayhi oo ku sheegay kitaabkiisa rawdatu daalibiin wa cumdatu muftiin macnaheeda ma ahan in niyada lagu dhawaaqaya ee waxa qofka uu sameynaya ayuu tilmaamayay imaam nawawi raxmatullahi calayhi waxaa kaloo niyada shardi ah tabyiitu niyati niyada in la baryaysiiyo habeenkii waa inay qofka uu niyeysaa soonka waajibka ah waa in habeenka la niyeysaa ramadaan ha noqdo soon la qadayna ha noqdo ama soon kafaara ama nadar ha noqdo soonka waajibka in la niyeyso weliba habeenka la niyeyso qoraxda markay dhacdo ilaa waaga uu ka barya in niyada ay ku jirto inaad soomaysid arrintan waa muhiim walaalayaal waana si ay qabaan jumhuur ahlulcilmi oo maalikiyada iyo shaaficiyan xanaabila ay kamid yihiin maxaa yeele nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man lam yabiti siyaama qabla alfajri falaa siyaama lahu qofka aan niyeysanin oo aan baryaysiinin soon fajrka ka hor soon uma sugnaanin xadiiska abi daawud iyo qeyrka ayaa soo saaray imaam albani xadiisku uu saxiix yeelay riwaayo kalena waxay aheeday man lam yabiti siyaama min alleyli falaa siyaama lah qofkaan habeenkii niyeysanin
صون ما أسقنانين رواية كلامنا وصحيح وعسو صار النسائي يغير كيسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وحيري أما تبييت النية نية إن لبريسي وهبين كل النيساي فإن الصوم الواجب صومك واجبك الذي وجب الإمساك فيه من أول النهار لا يصح إلا بالنة من الليل صومك واجبك أهوي أو إن لا أفيس أي واجب تهي ما أنت جنين كثر لقب باللعبة وحويان وإن قفك أنيس هبينك وشرط هبينك أنيس هدوس هبينك نيسانين صومك أسي أنصح معي مسألة جرتمك أنت رعصنوه ما شرط با هبين والبنين اللي عسبونيسيه أما هم بشهر رمضان بالله وجيده هداد نيسته إلى كذا ما نيسو نيدو والودي كرتا علماء أنت وسو خلافين علماء قالوا وحي لهذين وحا شرط هبين كستاي إن النيسو هبين كسر رمضان كمدا ما ننتدي نسومي إن النيسو وشرط ويصير قبان جمهور العلماء وحنفيدي الشافعي حنابلة أي كمديهين وأنا قول أوقبه ابن مدير سيدو كان وحد دورت ابن حزمي وحاكلو دورت الشيخ ابن بازي رحمة الله عليهم وحي ليهن هبين والبقين لي ماذا وشرط هبين كستاي oo Ramadan kamid ah maalinteeda ina soomaysid ina niyeysato oo tajiduni alati maaday waa shardi qowl labaad wuxuu leeyahay habeenka saa in niyo laliima ama la cusboonaysiyaa waxba shardi ma ahan oo waxa kugu filan habeenka ugu horeeyo ina niyeysato habeenka ugu horeeyo bisha Ramadan ay dhalato ina bishan soomi hadaa niyeysatay niidaas kugu filan wax kale laga rabo malahan waana madhab maalikiyya si ay qabaan iyo xanaafida qaar kamid ah iyo riwaaya xanaabilada laga wariyay waxaana doortay hadalkaas daba ibn Uthaymin rahmatullah alayhi sababtoo ah waxay yiraahdeen waxa israac raacahayo oo yani isku xiran soonka ilan 1 ila 29 ama 30 buu gaaraya soomaan wax saa isku raacayo isku xiran 1 hadad niyeysatay waa ka kaafinaysa bay yiraahdeen waa si salaada oo kale marka ugu horeyso niyeysato saddex ragcadood ka dambeys ragcada hore waxay raacayaan midii hore soomaan waxay yiraahdeen niyada shardi ma ahan habeen walba in la cusboonaysiiyo has ahaatee mas'alada waxa raajica qowlka hore oo ah نيد هبين بإن العسبونيسية إن الشرط أي تاي دلك أي دلسة مالكية وإليهن هبين والبنين العسبونيسية شرط معهن أيوة أو قياسين صلاة أو كلا أرين تاسي صح معهن أو حل أوجي هاي قفك أصوص صلاة كجرة رجعدي أفراد أما التحيات كمركم مرة وجود بيبا هدي أي وسيلة كبرته صلاة دي أردن ولا صوب الله بس معهن حيل مي اسكو حرام ويان صلاة أردن ولا صوب الله بيا أما قفك أدو صونا بيشيو مريس شن يتبان أو كلا أو صونك كبري shan iyo tobankii kala soo bilaab ma la dhahaa waa maya maalintaas ka tagtay ama maalintaas ka burtay ayuu qadaynaa Soomahan ida maashaas inay kala duwihiin ayaga laga qaadana baa leeyahay qowlku waxaan qaadanaynaa oo dhahaya haween bani in la cusboonaysiiyo ayaa wanaagsan waxay culimadu ka hadlaan soonka tadawuca in la niyeysaayo oo habeenkii la niyeysaayo shardi ma aha soonka tadawuca habeenkii in la niyeyso oo waxa hataa banaan maalintii in la niyeyso baa banaan nabi Muhammad alayhi salaam ayaa wuxuu u yimid umra Aisha radhiyallahu anha wa radaha maalmaha kamida markaas wuxuu yiri wax la cuna ma haysaan markaas waxay yiraahdeen waxba ma hayno markaas wuxuu ku yiri fa inni idan saa'imun ana waa iska soomaan buri macna markii hore ma niyeysanin laakiin maadaama wax la cuna la waayay waa bas soomaa buri soonkii aan sii wadana buri halka waxa la yaqaan soonka sunnada ah habeenkii in niyeyso shardi ma ahan ee soonka waajibka ayaa habeenkii in niyeysa ay shardi tahay waxa kale oo shardi ah istimraaru niyati niyad inay joogto ahaato qofka haduu niyeyso inuu soomo haddana oo go'aan samaanin Ramadan dhexda inuu afuraayo soonkiisu waa ka buriya hadduu rabo raashin qaadanan haddaad niyeysata maalin Ramadan gudaheeda tolo iska furtaa marxa ku xanuunay shaah iska cabtaa aad istiraahdaay soonkaada waa buriya qofkan qada ayaa ku waajibaya waa sida ay qabaan maalikiyada iyo xanaabilada iyo shaafici agtooda qowlka ah waana soo doortay ibn Uthaymin rahmatullahi alayhi waxa weeyay lihin niyadu waa shardi min shuruudi sihhati siyam niyadu waxaan ognahay waa shardi kamid ah shuruudda soonka oo ku ansaxaya saadada marka inay joogto ahaato ayaa fiican oo aan la bedelin haddana marka inta ugu gudubna soonka shuruudda uu leeyahay waxaan ugu gudbaynaa qaybta afraad oo ka hadlaysa arkaanu siyaami wa sununuhu soonka tiirarka uu leeyahay iyo sunooyinka uu leeyahay waxaan ku rumaynaa soonka tiirarkiisa soonka tiirka ugu weyn ee uu asaasisan ugu muhiimsan waxa weeyaan al-imsaaku an sa'ir al-mufdirati min tuluu'i al-fajr ila ghurub ash-shamsi qofkii soona inuu ka afhayso oo ka joogo ka reebtoonaado waxyaabaha soonka burinaya laga bilaabo waaga markuu u bariyo ilaa qoraxda ka dhiciso qofka muslimka oo sooman waxa waajib ku ah wax kasta oo soonkiisa burinaya inuu ka joogo wax la cuna ha ahaadaan wax la cab ha ahaadaan ama xaaskiisa oo la kulma ama wax kasta oo soon buri karaba laga bilaabo markay salaada dhalato ilaa qoraxda ka dhiciso Allah tabaaraka wa ta'ala wuxuu yiri fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataba Allahu lakum wa kulu washrabu
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الوحو ليه فالآن هدا باشروهن هاوينك لمباشراته عاد حكا ليسا واجي هورو مر هدي رمضان ولا جاره نينك حاسكيسي ان لا كلمه habeenka xataa uma banaaneen arinta markay culeys baan ay keentay ilaahay subhanahu wa ta'ala waa ka rafciyay culeyska muslimiinta oo waxa loo ogolaaday inay cunaan oo cabaan xaaskoon ay la kulmaan habeenka ramadaanka markii la joogo alla wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala fal'ana hada bashiruhunna haweenka la muamala wabtagu raadiya ma kataba Allah lakum Allah wuxuu idin qoray oo caruurta raadinaysan wa kulu cuna washrabu aba حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر إلى واجه سفع وبريهايو وهبينك إيمانتا يكلا بحيان عنا أعابا ثم كدمنا أتم الصيام إلى الليل إلى هبينك لا يقارو قرح كدعي سنة سنكين التهميلة مرهد الصلاة دلالته عند عبيد حاسكين ولا كلانتان واجو جنيسين إلى هبينك لا يقارو قرح كدعدنا سنكين ووذيسين رسولك عليه الصلاة والسلام محوري إن بلالا يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم بلال وحو آدامي هبين عنا أو عبا إلى أو كآدامي عبد الله ابن أم مكتوم عبد الله ابن مكتوم مركو آدامي آدانك صلاة يكون للني سويان بلال وحو آدامي آدانك هراء أو صلاة كوري أما عبد الله ابن مكتوم وحو آدامي آدانك صلاة الوجل لها بلال آدانك سوال عنا ولا عبا كجوجما راشين مت كان دبه دل آدم لكن عند ولا جوجنيا وها مهم هو إن أوجان أبهن ولا ليان قفك هدي واج أو كبريو السؤال كيس راشين كجرو واجب إفي أو صلاة بعد دلتي أدي وراشين في كوجرو مر حداد أركتو إن الصلاة دلتو وحلاجها بقى إن الجوجيسو واحد عنيس مركو حلاجها إن إسكتوفته أو آذن لقين صون كان تامبو نقنية حداد صار لقضه صون كذا وبريا وخطر وسيس كرعسيهن مذاهب تفقيه أفرت أهويان وحنفية مالكية شافعية حنابلة سببته قفك وحلالية وحول لقي راشين سكو تلقال أسوأ يسور قالته راشين كانوا إسكتوفه marka soonku waa ka buri bay yiraahdeen waxa kale muhiim ah qofka sooman waxa ku waajibaya afhaysasho ama inuu ka joogo soonka ka buri lahaa salaad markay dhalato laga bilaabo ilaa ay qoraxda ka dhacdo maalinta ha dheeraato ama ha gaabnaato meelaha qaar waxa dhacday mugtahay maalinta inay badan tahay ha badnaato maalintii mar hadii salaada dhalato ilaa ay qoraxda ka dhacayso in afhaysata waajib ku ah hasaate waxa sharda meeshaas iyada ah inay habeenkii maalinta ay iscibareen isdaba socdaan oo 24 saac gudaheed ay habeenkii maalinta isku bedelahayaan hasa ahaatee haddii qofku soon ku dhibtoodo maalmihii aad u dheer darteed soonkiiba ku dhibtooday man u dul qaadan karo maalintiina waaba dheer tahayo waxa laga yaabaa sida meelaha qaar ka jirto 19 saacadood iyo wax ku dhadhow ama wax ka badan in yacni maragtay ay la soonaado oo ay maalin tahayba habeenkii dhan 5 saacadood iyo wax ka yar ayba noqotoba meelaha qaar waxa dhici kartaba in habeenkii iyo maalintii isku furan ay noqoto oo yacni maragtay maalin ay iska noqoto haddii dhacdo qofku inuu soon ku dhibtoonayo maalmihii dheera soonkan uusan xamili karin oo laga baqay inay xanuun ku yimaado ama yacni maragtay ay dhibaato kale ku timaadaan qofka asaga waxa u banaan inuu iska afuro wixii ka tagayna oo qadeeyaba u banaan hadii ay qada u suuragelayso waa sida ay fadwoodeen Sheikh Ibn Baz iyo Ibn Uthaymin rahmatullahi alayhima waana sida uu qariray yacni uu sugay majma'ul fiqh al-islami waxa kale muhiim inuu ku baraano u baahan iyadana beledka uu qofkaas ku nool yahay ama dhulka uu qofkaas ku nool yahay hadiiba habeenkii maalintii 4 saac gudahood isku badbadeeyeen مثلا waxa dhici karta beledkaas inuu yahay beled maalintiis ay badan tahay oo waxa dhici kartaba 2 maalmood ama isbuuc ama bil yaani inuu maalin ay ahaato waxa la sameeyaa waxa dhici karto meelaha qaar in 2 maalmood dhan ay maalin iska tahay oo habeen aan lahayn isbuuc dhan inay maalin iska tahay oo habeen lahayn bil dhan ama ka badan inay maalin iska taho aysan habeen lahayn meelaas amal haduu qofku ku nool yahay muxuu sameeyaa waxa la sameeyaa maalintii baa la qadaraya inta maalinta ay noqonayso baa la qadari sidoo kale habeenkii waa la qadaraya oo maxaa lagu qadarayaa beledka ugu xigo ama dhulka ugu xigo dhulkan hadda uu ku nool yahay dhulka ugu xigay habeenkiis intee saacadood buu yahay maalintii intee saacadood buu yahay dhulkaas ayuu ku amal falaya dhulkii kale markii la yiraahdo intaas saacadood maalintii ay tahay habeenkii intaas saacadood bay tahay intaas saacadood waxa loo xisaabin in maalin tahay intaas saacadood waxa loo xisaabin habeen tahay oo qorxa soo jeeday soonkiisu waa furaya inuu anfuro ayaa u banaan هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.